6 cunto oo si dabiici ah u nadiifiya beerka. Beerkeenu wuxuu maalin walba si adag uga shaqeeyaa sidii uu jidhka uga difaaci lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ay suntu u geysan karto. Meesha ugu horeysa ee jidhkaagu sunta iskaga saaraa waa beerka. Beerku wuxuu si joogto ah dhiigga uga shaandheeyaa sumaha kala duwan ee ka soo gala dheefshiidka, maqaarka iyo habdhiska neefsashada. Marka beerkaaga ay shaqadu ka badato iyadoo ay ugu wacan tahay cadaadiska uga imanaya sumaha kala duwan ee uu la tacaalayo, waxaa laga yaabaa inuu saameyn caafimaad oo aad u weyn kugu keeno. Sidaa daraadeed, waxaa aad u muhiim ah inaad daryeesho oo aad ka warhayso caafimaadka beerkaaga. Muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa 6 cunto oo aad u muhiim ah kuwaas oo si dabiici ah u nadiifiya beerka, shaqadiisana kor u qaadaya. 1. Toonta. Toontu waxay faa'iidooyin aad u awood badan u leedahay beerkaaga. Waxay firfircooni gelisaa dheecaano ku jira beerka oo ka caawiya inay bannaanka u saaraan sunta. Toonta waxaa ku jira 2 maado oo aad u awood badan, kuwaas oo loo yaqaan allicin iyo selenium, kuwaas oo la cadeeyay inay si weyn beerka uga difaacaan waxyeelada suntan, isla markaana ay beerka ka caawiyaan inuu sunta iska saaro. 2. Liinta bambeelada. Liintan loo yaqaan bambeeladu waxay qani ku tahay 2 waxyaabood oo si weyn u nadiifiya beerka, kuwaas oo kala ah vitamin C iyo antioxidants. Sida toonta oo kale, liinta waxaa ku jira maadooyin firfircooni geliya dheecaanada ku jira beerka ee ka caawiya inay bannaanka u saaraan sunta. Fiiro gaar ah haddii aad daawo isticmaasho, la tasho dhakhtarkaaga ka hor intaanad qaadan cabitaankan, sababtoo ah waxay la falgeli karaan daawada aad qaadato. 3. Shaaha cagaaran. Shaaha cagaaran waxaa ku jirta maado loo yaqaan catechins, taasoo ka hortagta in beerka ay baruur badan ku ururto, sidoo kalena sare u qaada shaqada beerka. Maadadani waxay sidoo kale ka hortagtaa in beerka ay sun ku ururto, isla markaana ay dhaawac u geysato. 4. Avocado. Midhaha avocadadu waxay ka mid yihiin cuntooyinka loo yaqaan superfoods, waxaana leedahay faa'iidooyin caafimaad oo la soo koobi karin. Waxay qudaartani qani ku tahay maado loo yaqaan glutathione, taasoo beerka sunta ka nadiifisa, isla markaana sare u qaada caafimaadka beerka. Cilmi baadhis la sameeyay ayaa lagu cadeeyay in haddii 1 ama 2 midh oo avocado aad cunto toddobaadkii, uu 30 cisho gudahood ku bogsiinayo beerka dhaawacu soo gaadhay. 5. Tufaaxa. Tufaaxu wuxuu horumariyaa caafimaadka beerka. Waxaa ku badan maado loo yaqaan pectin oo ka caawisa mindhicirradu inay sun nuugaan wixii jidhka khatar ku ah. 6. Kaabashka. Kaabashku wuxuu dardargeliyaa soo saarista dheecaamada sunta ka saara beerka. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Like saar, subscribe channelkan wax ka baro haddii aad nagu cusub tahay. Sidoo kale la wadaag asxaabtaada. Waanigu Cabdirasaaq Faaraxa. Tan iyo kulankeena kan xiga haddii Rabbi idmo, isma dhaafno.